بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واحد يراد محمد حسين عدو. إن شاء الله waxaan rabaa muuqaalkaygan in aan uga hadlo heshiiskii ay gaareen madasha qaranka bishan 27 2023. runtii muuqaalkayga waxaan u kala qaybin doonaa aragti la xiriirta falcelintii ay ka subiyeen shacabka qaybihiisa kala gedisan iyo aragti u qaas ah maxamed xuseen caddow oo la xiriirta heshiiskan oo siyaasadeed ay gaareen madasha qaranka. runtii intaanan macnaha u gudagelin waxaan rabaa in aan ka horumarsado ama aaraar ka dhigto oraah waxaa jirto oo ingiriis ah oo maaragtay runtii qiimeynaysa garaadku dadku leeyahay bini aadanku leeyahay. marka garaadka bini aadanku leeyahayna waxay u kala qaybiyeen saddex ayay u kala qaybiyeen. mid waxay ku tilmaameen garaad iyo garasho sare oo macnaha koreeyo. midna waxay ku tilmaameen mid u dhaxeeya midka koreeya garaadka sareysa iyo garashada koreysa iyo midka hooseeya mid u dhaxeeya oo dhexdhexaad ah. midka ugu hooseeyana waa midka waxay ku tilmaameen garaadka ugu hooseeya oo macnaha bini aadanku yeelanayo. marka qiimeyntaasi oo garaadyada iyo garashada bini aadanka lagu qiimeeyay tallaabo oo maaragtay oo aniga ii qaas ah maxamed xuseen ahaan ayaan runtii aan ku sii fasiray. qiimeyntaasi oo garaadyada bini aadanka lagu qiimeynayay wax qofkaasi ka bixiyay oo ingiriiska ah oo oraahdaasi wuxuu ka bixiyay wuxuu yiri garaadka iyo garashada sare waxay ka doodaan oo ay ka manaaqashoodaan mabaadiida iyo afkaarta ay ka manaaqashoodaan oo ay ka doodaan ayuu leeyahay. garaadka u dhaxeeya kan hooseeya iyo kan sareeyaba u dhaxeeyana oo dhexdhexaadkana wuxuu ka doodaa uu yiri dhacdooyinka ayuu ka doodaa ayuu yiri. garaadka ugu hooseeyana oo bini aadanku leeyahayna wuxuu ka doodaa uu yiri dadka ayuu ka doodaa heblaay hebel sidaan iyo kan iyo calaa xaasil isku soo ururi xan ayuu ka doodaa ama siyaasad ha noqoto ama shakhsi ha noqoto. hadda markaa fiiriso marka heshiiskii ay gaareen madasha qaranka heshiiskii siyaasadeed ay gaareen madasha qaranka bishan 27 qiimeyntii iyo doodihii dadka ay ka keeneen bal aan fiirin. run ahaantii waxaad dareemaysaa in dadkii Soomaaliyeed ay iskugu soo urureen aragtidii qiimeyntii maaragtay garaadyada lagu qiimeynayay laba meel inay iskugu soo urureen oo aan dhihi karo 95% hal meel ayay iskugu soo urureen oo ah garaadka hooseeyo oo ka doodaya dadkii ka doodaya. maxaa tusaale taas u ah markaad fiiriso falcelintii laga suubiyay heshiiskii 27 bishan la gaaray falcelinta ay shacabka qaybihiisa kala gedisan ay ka suubiyeen ama lagu soo bandhigay maaragtay media lagu soo bandhigay oo social media lagu soo bandhigay in falcelintii dadka ka suubinayeen 95% waxay ka hadlayeen dadka ay ka hadlayeen shakhsiyaadka ay ka hadlayeen oo waxay lahaayeen nimanka meesha ku shiray waa tuugo dantooda ayay u shireen extension iyo muddo kororsi kaliya ayay u shireen qayb saas ayay leedahay oo macnaha daliilahaas ayay u yeelayeen. daliilahaasi inay jiraan iyo inaysan jirin ma aha anigu doodayda maxamed xuseen ahaan. qaybta kale oo waxay leedahay heshiiska waxay leeyihiin maaragtay dhacdadii ayay ka doodayaan oo waxay leeyihiin heshiisku wuxuu ficnaan lahaa ayada oo loo wada dhan yahay sababtoo ah qayb ka mid ah ayaa ka maqan heshiiskii oo ah Puntland oo Siciidani ayaa meesha ka maqan. markaad fiiriso marka dhacdadii dhacday heshiiskii madasha qaranka siyaasadeed gaareen oo masiirka ummadda Soomaaliyeed oo ay u gaareen mustaqbalka iyo dhibaatooyinkan haysta sidii looga gudbi lahaa
dadkii Soomaali falcelintii ay ka subiyeen markaad qiimayso garaadkoodii waxay ku soo urureen laba qaybood ku soo urureen inay ka doodaan dadkii oo aysan ka doodin arrintii dhabta ah meesha tiilay qaar yaroona inay ka doodaan dhacdadii maaragtay heshiisku inuu dhaco way fiicneed laakiin dadka ka maqnaan dhacdooyinka ayaa ayagana ka doodeen laakiin maxay ahayd in laga doodo maxay ahayd marka maxaa mudnaanta lahaa oo in laga doodo ay ahayd waxay ahayd mudnaanta xaqa ah in oo dooda ay timaado waxay ahayd war wax laga wada hadlayo waxay ahayd masiir umad ay leedahay way masiir umad ay leedahay ayay ahayd oo waxay ahayd waxa la rabo in lagu xalliyo dhibaatada maanta taagan in lagu xalliyo barina lagu gaaro xal buuxo oo kaam ah tan saddexaadna in maaragtay halkaasi la gaaray wax ilaaliya oo aysan dib dambe aysan noogu soo noqon maadaama dhibaatooyinku aad noogu soo noqdeen afkaartaas iyo mabaadi'daasi ayaa laga doodayay marka mudnaanta waxay ahayd in laga doodo arrintaasi ayay ahayd laakiin annaga doodeeni iyo falcelinteeni waxay ku soo ururtay caqligii yaraa oo ahaa inaan ka doodaan dadku shakhsiyaadka ay ka doodaan ama xasan sheekh ha noqdo ama madow ha noqdo ama qorqoor ha noqdo ama cali guudlaaw ha noqdo ama dani ha noqdo gurigii kalena waxay ku caqligoodii oo macnaha wax ku cabirayeen doodan iyo falcelintooda waxay noqotay dhacdada maaragtay dad baa ka maqan runtii meesha bahasha nagama jirto aan u gudubno kor aan aadno caqliga sareeya ee garaadka wax garashada leh aan u gudubno meeshani waxay ahayd inaan ka doodno ay doodda ahayd inaan ka doodno maaragtay afkaarta mabaadiida lagu xalinayo dhibaatooyinka waddankan haysto taa maxaan u leeyahay marka labadan group oo aad macnaha qiimantoodii iyo doodoodii falcelintoodii waxaan u diidanahay horta waa mid inaad ogaataan qolooyinka aan shirka ka soo qaybgalin oo ka maqan iyo qolooyinka hadda joogo intaba layskuma haysto afkaarta iyo mabaadiida waddankan halka lagu raadinayo layskuma haysto shakhsiyaadka kaliya ayaa isdiidan oo macnaha qolada maqan hadda uma maqno afkaarta iyo mabaadiida waddanka lagu hagaajinayo la rabo in halka loogu keeno mayse diidano laakiin waxay diidan yihiin kaliya wadada loo maraayo cidda u maraysa iyo awoodda sida loo kala leeyahay inta bay doodaysan laakiin mabaadiida iyo afkaarta dhabta ah meesha taalla oo la rabo in maaragtay oo muhiimadda tahay in dooda laga doodo oo la rabo in ummadani lagu hago dhibaatooyinkooda hore macnaha lagu xalliyo dhibaatooyinka dambe inaysan imaanin waddanka dhan lagu haga ayay ahayd mabaadiidaas inaan ka doodno marka saddex shay ayaa ilaa laga soo bilaabay 2004 ilaa maanta la joogo oo heshiiskan 27 bisha la galay saddex shay ayaa waa la yaqaanaa waxa la rabo oo waa la cadeeyay oo waxa la yiri waxaan rabnaa dawlad casri ah la jaan qaadi karta adduunka ayaa la rabaa yiri marka dawladdaasi waa inay yeelataa sifooyin marka saddex sifo ayaa marka looga baahan yahay saddexda sifo marka way kala horeeyaan sifada koowaad waxay tahay in la helo maaragtay dawlad awood u leh laba shayba awood u leh koow in ay maaragtay dawladdaasi dhulka ay macnaha dawladda u tahay inay gacan buuxda ay ku hayn karto in gacan buuxa ay ku hayn karto oo runtii ay cidnaba ugu hoos imaanaynin oo ay maamusho waa koow laba waxa loo baahan yahay in maaragtay shuruuc di waddanka iyo sharciyadii waddanka lagu dhaqi lahaayeen inay midaysan yihiin marka waxa loo baahan yahay dhul midaysan ay dawladdaasi maamusho oo awoodeeda oo ay dhulka inay midayso laba shuruucdii midayn lahayd inay ayadana dejiso labadaasi ayaa marka ugu horeyso ayaa iska leh wax la yiraahdo hortubinta dawladda ilaa 2004 ilaa hadda labadaas shay ayay xalinaysaa midda saddexaad oo soo xigta waxay tahay in la helo wax la yiraahdo la xisaabtanka marka la fasirayo nimankan political scientist ay leeyihiin
إلى مبادئ هذا أنا قلنا لك يعني ماشي كتم دي دول ديسكان وحواي الحساب معناها وحواي وحلقوا ذا دور الشيء لقوا ذا أو ماركتي مدحدي الشرعية دي هدو قفك مدحدي لقوا دورناي مدحدي هدي شرعية دقن جلسي لقوا ماركتي هدي أي جيرتي أما أي برسي لقوا حساب تمام مركز لبذان شيء إن دولة أي دولكو أي وضع هايستو لبا إن أي شروع وضع مديسان الهشو كدب أي إيماني سادور الشرع إلى حساب تنك مركز مبادئ ذا مركز لقد دودا أي الشرع إلا بكون إلا لبا كنت عرتو إلا هشيس كالشرع تبا لبا الشيء أي هاي سيري دولكاني أي دولة ما دام الدولة العصرية اللي دولة معناها لقوا صفات ذي تاين دولكا أي دولة تاي قعنت قوة هايسو لبا إن شرعية أي معناها أي مديسيهين انت صورت لك سو شقيناي تنصدحنا waxay yiraahdeen waxaan u gudbaynaa accountability ama la xisaabtanka oo ah doorasho qof iyo cod ayaan qabanaynaa marka waxay ahayd dooda war waxa mabaadiidani oo macnaha la qeexay oo la jeexay oo wadada loo suubiyay oo la leeyahay dhibaatooyinkeena ku xalinaynaa ayada ayaa ah dariiqa sax la leeyahay ayada la leeyahay kan ayaa xal waar ay noqonayso waxay ahayd in aan ahayd dooddaasi in ay shacabka noocyadiisa kala duwan haddii noqon lahayd siyaasiyiin haddii noqon lahayd aqoon-yahano iyo haddii noqon lahayd ummadda kaleba in dooddaasi ay dhaxtiile ayay ahayd marka insha allah muuqaalkayga soo xigo waxaan jeclahay doodda inaan kor u qaadno oo doodda aan ka dhigno garaadkii sareeyay caqliga sareeyay oo doodayna aan ka dhigno mid aan kaga doodno mabaadi'daasi loogu talagalay waddanka in halkiisa iyo masiirkiisa iyo dhibaatooyinkiisa lagu xalliyo taas ay hadina ka doodno sababta mabaadi'daasi dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin iyo qasaaraha inay xal noqon karaan inaysan noqon inaan ka doodno waa insha Allah muuqaalkayga xiga ayaan doodaasi ku keeni doonaa waqti soo dhow insha Allah salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh